آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل. هنقونن reer caadi. reerkan waxay ka kooban yihiin hooyo iyo aabbo iyo caruurtooda. aabbaha waxaa lagu magacaabaa mudane caadi. mudane caadi wuxuu dhashay dhalasho caadi ah, kadibna wuxuu tagay iskuul caadi ah, wuxuu ku baasay darajo caadi ah, wuxuu galay kulliyad caadi ah, kadibna wuxuu kulliyadii ka qaatay shahaado caadi ah, wuxuu helay shaqo caadi ah, wuxuu guursaday gabar caadi ah, waxay u dhashay caruur caadi ah, waxayna ku noolaadeen nolol caadi ah, wuxuuna dhintay dhimasho caadi ah. gabadha iyadana waxaa lagu magacaabaa marwo caadi. marwo caadi iyaduna waxay dhalatay dhalasho caadi ah, waxayna ku nooleed nolol caadi ah. waxay dooratay inay gurigeeda iska joogto, waxayna isu qancin jirtay maxaad ka aadaysaa waxbarasho, maxaad ka doonaysaa dugsi iyo waxbarasho isugu dhibaysaa, ugu dambaystii xagee u dambeyn doontaa? guriga ninkaaga iyo caruurtaada unba wax u dhaqaysaa iyo ninkaaga. maxaad wax ka baranaysaa, maxaa faa'iida ah, maxaad jaamacad iyo iskuul u galaysaa hadda? midaas ayay isu qancin jirtay marwo caadi, ilaa markii dambe uu kasoo doontay mudane caadi, kadibna isguursadeen, kadibna waxay u dhashay caruur caadi ah. waxay ku noolaayeen nolol caadi ah, nolol aan ku jirin jacayl, dareen, isfahan aan lahayn. noloshaas ayay isaga jirtay nolol caadi ah. haddaba labadan qof, mudane caadi iyo marwo caadi, nasiib daro waa dadkeena inta ugu badan. saa darteeda fikraddan waxay tahay ha noqonin adigana mudane caadi ama marwo caadi. si aadan u noqonin mudane caadi iyo marwo caadi, waxaan kula qaybsanayaa 5 tallaabo. 5tan tallaabo haddii aad maanta bilowdid inaad ku dabaqdid nafsadaada, ma laga yaabo marnaba inaad ahaatid mudane caadi ama marwo caadi, kamana mid noqon doontid weligaaga reer caadi. العزم هيا نمضي سويا. fikradda koowaad waxay tahay xadid hadafkaaga nolosha. dhammaanteena halkan waxaa lanoo keenay hadaf. hadafkaasna qofkeena hadduusan hadda xadidin, hadda jaangoynin, hadda ogaanin, nasiib daro wuxuu ka tegayaa isagoo aan kasoo bixin hadafkii loogu talagalay. qof kastoo naga mida wuxuu leeyahay meel loogu talagalay, meeluu ku fiican yahay, meel aan qofna ku gaari karin. buugga adigaa qortid qof kale ma qori karo, fikradaad keentid qof kale ma keeni karo. qof kale ha ku dayanin, adiga keligaaga, adiga shakhsiyadaada, qofka adiga aad tahay ayaaba ah sida lagugu talagalay. haddaba muxuu yahay shaygan ka guuxaya maskaxdaada? waan ogahay maadaama aad nooshahay, naftaba ay kugu jirto, mar walba waxaa maskaxdaada ka guuxaysa hadafkaaga, waayo naftaadu waxay rabtaa inay gaarto hadafkaasi. video dhan ayaan ka sameeyey oo aan kugu cadeynayo sida aad ku jaangoynaysid, ku xadidaysid ahdaaftaada nolosha. ka daawo halkan videogaas. xadid ahdaaftaada nolosha. ogow hadda, qor hadda, mar walba ku qoro warqad, la soo baxa mar walba, fiiri mar walba, ku celceli mar walba, si aad uga dhaweysid hadafkaaga nolosha. ogowna noloshan waxay wadada u banaysaa oo ay soo dhaweysaa qofka og meesha uu u socdo. fikradda labaad waxay tahay horumarin joogto ah. weligaaga ha ka quusanin
inaad maalin kasta wax baratid, waxbarasho joogto ah. waxaynu u qaybinaynaa horumarintan 2 qaybood. kow, horumarin ku saabsan koorsooyinka aynu qaadanayno, luqadaha aynu baranayno, fiidiyoyada aynu daawanayno, duruusta aynu dhageysanayno. qaybtaas waa qayb. qaybta kale waxay tahay wax akhris, buugaagta aynu akhrinayno. haddaba waa inaad maalin kasta nafsadaada ku haysaa horumarin joogto ah. waxaynu ku noolnahay adduun u soconaya si degdeg ah, adduun maalin kasta uu isbedelayo. qofkeena hadduusan la jaan qaadin, hadduusan la socon adduunkan dhaqsaa u socda, waxaa looga tegayaa meel cidlo ah. saa darteeda walaal, waxaan ku leeyahay marnaba ha ka harin inaad nafsadaada ku haysid horumarin joogto ah. walaashay, adigana weligaaga ha dhihin maxaan sameeyaa, maxaan baranayaa hadda, da' wax lagu barto miyaan joogaa, caruur ayaan leeyahay, ninkayga ayaa igu xiriira. arrimahaas oo dhan ma ahan wax kaa celinaya inaad wax baratid. baro diintaada, baro arrimaha adiga kugu saabsan ee shakhsiga ah. waxyaabahaas oo kale ma ahan inaad mar walba qof weydiisid. mar walba arrimaha diinta khaaska adiga khuseeya hataa ma aha inaad dad kala wareysatid, waa in adiga raadiso oo aad barataa. ma aha inaad iska fadhiisatid oo waxa u baahatid un hebel maxaa laga wadaa, saas maxaa loola jeedaa, saas markay tid maxaan sameeyaa. may waajibka ku saaran wuxuu yahay inaad u dhaqaaqdid oo adiga wax baratid oo nafsadaada horumarin ku haysid mar walba oo aad wax walba baratid. ogow, hadda xilligan la joogo, waqtigan la joogo, wax walba aad rabtid waa noqon kartaa. haddaad rabtid adoo gurigaaga jooga ayaad jaamacad dhammayn kartaa. adoo gurigaaga jooga ayaad qaadanaysaa shahaadooyinka ugu sareeya. adoo gurigaaga jooga ayaad baranaysaa luqado. adoo gurigaaga jooga ayaad baranaysaa computer. baro waxaas oo dhan. maxaa kuu diidaya? baro computerka, baro luqadaha, baro waxaas oo dhan si caruurtaada ugu caawisid hadhow. haddaba ku hay nafsadaada horumarin joogto ah. fikradda saddexaad waxay tahay bilow hadda. moogtahay farqiga u dhaxeeya qofka caadiga ah iyo qofkaan caadiga ahayn? kaliya inay tahay qofka caadiga ah wuu ogyahay waxa uu rabo, wuu ogyahay inay muhiim tahay in noloshiisa horumariyo, inuu qaato maanta koorsooyinka noloshiisa horumarinaya, inuu barto luqad cusub. balse mushkiladiisu waxay tahay dib ayuu u dhigayaa. ma doono inuu hadda wax bilaabo. mar walba wuxuu ku leeyahay beri ayaan bilaabayaa, waqti kale ayaa ka badan. halka qofkaan caadiga ahayn qaamuuskiisa aan ku jirin waxa la yiraahdo dib u dhig. wax walba wuxuu ku qabtaa waqtigii loogu talagalay, waayo wuxuu ogyahay howl maanta ku sugaysa dib looma dhigo. waayo marka aad hawsha maanta dib u dhigtid way kugu sii badanaysaa berito ee ma ahan midaasi xal. xalku wuxuu yahay in hawsha maanta aad dhammaysid si aad beri mid kale u bilowdid. waayo maalin kasta waxay la imaanaysaa hawsheeda gaarka ah. marka aan dib u dhigto ti shalay waxa iyo maanta oo mid cusub ayadana wadato hawsheedii, waxa isugu ka darsamaya hawshii shalay iyo hawsha maanta cusub. haddaba wax walbood ku riyoonaysid, wax walbood jeceshahay, waxaa rabtaa inaad buug qortid, qor maanta. waxaa rabtaa inaad video duubtid, duub maanta. waxaa rabtaa inaad saxafi noqotid, noqo maanta. waxaa rabtaa inaad daaci noqotid, noqo maanta. maxaad dib u dhigaysaa? ku bilow waxa aad haysatid, ku bilow meesha aad joogtid, ku bilow waxa aad garanaysid. meesha ayay ka bilaamaysaa tallaabada koowaad. hadda ku bilow waxaad awoodid, waxaad haysatid iyo meesha joogtid. wax ka celinaya ma jiraan guusha. markaas guusha adiga ayaa iska leh. midda afaraad, fikradda afaraad waxay tahay aamin nafsadaada. kalsoonidu waa waxa kala saara qofka caadiga ah iyo qofkaan caadiga ahayn.
qofka caadiga ah kuma kalsoona nafsadiisa, kuma kalsoona awoodihiisa, kuma kalsoona aqoontiisa, kuma kalsoona shakhsiyadiisa. halka qofka aan caadiga ahayn uu aaminsan yahay nafsadiisa, wuxuu ku kalsoon yahay Allah subhanahu wa ta'ala, wuxuu ku kalsoon yahay awoodihiisa, wuxuu ku kalsoon yahay shakhsiyadiisa, wuxuu og yahay waxa qof kale uu sameeyay inuu sameyn karo. Hiblaayo haday sameysay anigana waan sameyn karaa, hibil hadii uu sameeyay anigana waan sameyn karaa, ma jiraan wax iga celin kara. ogowna midagu hadiiba qof uu sameeyay anna waa sameyn kartaa. adiga qofna kama liidatid, ma jiro qof adiga ka fiican ama adiga aad u aragtid inuu yahay qofkaas in adigu ka fiican yahay oo adigana aad ka liidatid, ma jiro. adiga waa sida adiga aad aaminsan tahay. maxaad ka aaminsan tahay nafsadaada? waxaad ka aaminsan tahay inaad ku kalsoon tahay nafsadaada, inaad sameyn kartid wax walba oo qof kale uu sameeyay, bas waxaad ka aaminsan tahay liita, qof liita, qof aan waxba sameyn karin. haddaba ku qab awoodahaaga Ilaahay uu ku siiyay, ku kalsoonow awoodahaaga, ku kalsoonow shakhsiyadaada, ku kalsoonow aqoontaada, banaanka u soo saar. markaas ma jiraan wax ku celin kara. markaas ma noqonaysid qof caadi ah, kamana mid noqonaysid reer caadi. midda shanaad waxay tahay si fiican u dooro saaxiibadaada. qofkeena waxaa lagu gartaa oo saaxiibadiisa. si fiican isaga fiiri dadka la saaxiibaysid. haddii aad la saaxiibtid dad aadan isku hadaf ahayn, dad aan isku fikir ahayn, dad aan guusha iyo waxaasba kala jeclayn, dad caadi ah haddaad la saaxiibtid see ku noqonaysaa qof aan caadi ahayn. waxaad ahaanaysaa dad caadi ah, dadkaas unbaad ka mid noqonaysaa. haddaba dadkaad la saaxiibaysid ka dhigo dad aan caadi ahayn. raadi dadka waxbarashada jecel, raadi dadka aqoonta jecel, raadi dadka doonaya noloshooda horumariyaan, dadka raba inay wax kororsadaan, dadka jecel inay daawadaan fiidiyodan oo kale. dadkaas la saaxiib, dadkaas saaxiibo ka dhigo si aad wax uga baratid, si aad aqoonta uga kororsatid. dadka la saaxiib, hala saaxiibin dadka caajisiinta ah, dadka ku oranaya maxaad ka daawanaysaa fiidiyooda oo kale nolosha ku saabsan, muxuu kuu sheegayaa qofka, maxaad ka faa'iideysaa. dadka aan kala jeclay inay nafsadooda horumariyaan, dadkaas ka fogow, aysan kugu daaran cudurkooda. dadkaas waa dad caadi ah, adigu ma tihid dadkaasi. lamid ma tihid dadkaasi. adiga ma tihid qof caadi ah. haddaba haddii aad ku dabaqdi 5 tallaabo nafsadaada, waxaan kuu damaana qaadayaa inaadan noqon doonin qof caadi ah, inaadan weligaaga ka mid noqon doonin reer caadi. waxaadna bilaabaysaa maanta laga bilaabo waxa aynu ugu yeerno nolol cusub. aad ayaad u mahadsantahay. soo dhawow mar kale. haddii aad ka heshay videogan oo ku cajabiyey, ka waran haddii aad la wadaagtid saaxiibadaada iyo qof kastoo aad garanaysid. sidoo kale haddii aadan channelkeena weli subscribe ku sameynin, maxaa ku diidaya? ku dhufo badhanka guduudka ah, meeshaas ku qabo, waayo waxaan ku damaana qaadayaa inaadan ku khasaarinayno midaas. waa hubaal midaas kuma khasaari doontid. ee ku dhufo badhanka guduudka ah. soo ma doonaysid inaad saaxiib lana noqotid. aad ayaad u mahadsantahay. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل.